ونمد شر dhammaan agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waaxyaha ee wasaaradda iyo PFM management teamka ama coordination teamka waxaanu ka hadlaynay wuxuu ahaa u diyaar garowga sanad miisaaniyadeedka 2018 sida laga yaabo in ka warqabtaan dhawaan waxa la baasgareeyay xeerka PFM accountability act ama maareynta lacagta dawladda ama la xisaabtanka maareynta lacagta dawladda oo xeer cusub ka soo baxay xeerkaasna uu runtii nidaam cusub iyo uu soo kordhinayo horumarna laga sameeyo qaabkii aynu u sameeysan jirnay budgetka oo sanad la ahayd oo imika laga dhigayo multi year ama ilaa 2 sanadood 3 sanadood la sii sameeyo budgetkeeda isla markaana lagu soo darayo waxyaabihii ka maqnaan jiray oo dhan hadii tahay lacagta hay'adaha hadii ay tahay investmentka hadii ay tahay wax la yaalo wixii wadanka galaya oo comprehensive ama in la isku daro taasoo runtii wax weyn u noqonaysa waa talaabo xagga horumarka loo qaaday xeerkaasina wuxuu waajibinayaa in la xisaabtamo wasaaradaha hay'adaha dawladda iyo cid kasta oo ku lacag ama soo galaysa public finance management in la xisaabtamo marka waxaan maanta ka wada hadalay sidii aanu ugu diyaar garoobi lahayn hawlaha ballaaran iyo isbedelka ballaaran iyo qorshihii aanu ku waajihi lahayn baanu aad uga wada hadalay maanta markaana wixii hadda ka dambeeyana waxaanu la kulmi doonaa dhammaan hay'adaha kale ee haday noqoto golaha wasiirada haday noqoto baarlamaanka iyo cidii kale ee ay khusaysaba markaana anagu xaqayga ka soo dhamaato ayaanu iyagana la kulmi doonaa si la isula jaan qaado oo wixii budgetka sanadka cusub ee la diyaarinayo u waafaqsanaado xeerka cusub ee la soo saaray PFM accountability act la yiraahdo ayaan runtii ayaan ka wada hadlaynay maanta sidii loo waajihi lahaa ama nidaamka cusub loo qaadan lahaa shirkiina si fiican buu noogu dhamaaday waxaan rajaynaynaa bisha July marka ay bilaabanto inaan gudagali doono diyaarintii budgetka sanadka 2018